Maxkamadda sare ee dalka Cumaan ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay kiis la xiriiray markab siday dhuxul kaasi oo la sheegay inuu ogolaansho ka haystay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, arrinta oo sababtay in shaqada laga joojiyo wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse. Maxkamadda sare ayaa soo saartay go'aan ay ku sheegtay inuu la xiriiro kiiska markabkan siday dhuxusha. Go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Cumaan ayaa hadda lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya aysan wax luga ku lahayn wax qalad ah oo la xiriira kiiska markabka dhuxusha. Sidoo kale lama helin wax cadeymo ah oo muujinaya in markabkan uu ogolaansho ka helay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ama hay'adaha ay khusayso arrintan si dowladda Cumaan ay u sii deyso markabkaas oo dhuxul siday sida lagu xusay bayaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi Cumaan. Bishii May ee sanadan ayay ahayd markii shaqada laga joojiyay wasiirkii arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse, kaasi oo lagu eedeeyay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay ku lug leedahay kiis markab dhuxul siday ka oo la sheegay in lagu qabtay waddanka Cumaan. Waxaana arrintaas ay dhalisay hadalhayn badan iyo sidoo kale guux ka jira hay'adaha dowladda oo la xiriira in hay'aduhu ay ku lug yeeshaan kiisas la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin intii ay jirtay xukuumaddii xilgaarsiinta ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble. Sida muuqata, maxkamadda sare ee dalka Cumaan waxay shaaca ka qaaday inaysan helin wax cadeymo ah oo la xiriira in wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ay ogolaansho siisay markab siday dhuxul ka oo la sheegay in lagu qabtay qaybo ka mid ah dalka Cumaan, sidoo kalena warbaahinta loo dusiyay xogtiisa. Arrintaa oo keentay in shaqada laga joojiyo wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse. Qaramada Midoobay iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha dabagalka cunaqabateynta saaran Soomaaliya ayaa dhowr jeer ka digay in dhaqaale laga sameeyo dhoofinta dhuxusha iyo sidoo kale dabargoynta dhirta Soomaaliya, taa oo mararka qaar sababta abaaraha iyo sidoo kale isbeddelka cimilada ee ka jira gobollada Soomaaliya.